waa dhalinyaro reer miyi ah oo garaacaya laba nin oo al-shabaab ah oo ay qabteen iyaga oo hubaysan waxayna u geysanayaan jirdil xoogan sidoo kale ciidamada Leopolis ayaa iyana ku kor faysteynaya kuna kor dhaayteynaya meydka iyo sidoo kale qaar ka mid ah kooxda al-shabaab ee argagixisada ah oo ay gacanta ku soo dhigeen shacabka iyo sidoo kale ciidamada Leopolis ayaa si toos ah isu garabsanaya iyaguna dharbaaxo kulul gaarsiiyay ururka al-shabaab walow ururka al-shabaab ay iyaguna soo dhigeen muuqaalo argagax leh meydad ciidamo Itoobiyaan ah iyo sidoo kale qaar cararaya dhaawacooda iyaguna muuqaaladooda iyo sidoo kale sawiradooda soo baahiyeen muuqaalka dambe ayaan kugula wadaagaya haddaba muuqaalkan oo ah mid yaab badan sidoo kale argagax badan ku tusinaya awoodda ay leedahay shacabka iyo dawladdu markay isla socdaan ayaan daawada kula wadaagaya dhalinyaro si toos ah gacantooda ugu soo qabtay koox ka tirsan ururka al-shabaab oo markaasi qoryaha ka qaaday garaacayana iyo shacabka oo si toos ah u taageeraya dawladda si ay markaasi uga adkaato ururka argagixisada ah ee gumaadka ku haya shacabka inta aan daawada kula wadaagin xogta iyo dagaalka u dhaxeeya Leopolis iyo ururka al-shabaab iyo guud ahaan Itoobiya haddii ay tahay marka koobaad aad soo booqato channelkeena Xalana Media subscribe oo furo gambalaalka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena like sar muuqaalka share garee lana wadaag asxaabtaada maasanid asbuucii u dambeeyay waxaa socday dagaal xoogan oo u dhaxeeya ururka al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada Leopolis labadii maalin oo u dambeysay waxaa dhacay dagaalkii ugu adkaa abid iyadoona ururka al-shabaab weerarka soo qaadeen waxaana la sheegay dagaalku inuu ahaa kii ugu adkaa taariikhda ee labadan kooxood ay isu adeegsadaan guusha ayay labada dhinac sheeganayaan walow dawladda Itoobiya ay sheegtay inay dishay saraakiishii ugu sarsareysay ururka al-shabaab oo kamid yahay Faad Maxamed Khalaf Shangole kaas oo ahaa shakhsi dhibaato badan ku hayay shacabka Soomaaliyeed reer Muqdisho ay xasuustaan dhibaatadii uu u geystay xilligii uu haystay magaalada Muqdisho haddaba daawade ciidamada Leopolis ayaa soo bandhigay maxaabiis ay ka qabteen ururka al-shabaab dhinaca kale al-shabaab ayaa soo bandhigay muuqaalo argagax badan meydad iyo sidoo kale dhaawacyo ay ka qabteen sida ay sheegeen ciidamada Leopolis oo watay dariiska ciidamada dawladda Itoobiya waxaa kaaga sii daran sawir baraha bulshada hadalhayn xooggan ka dhaliyay oo aad barnaamijkeena dambe ku daawan doontaan ka oo ururka al-shabaab aad ugu baahiyeen warbaahinta inta aan howlahaasi oo dhan kula gelin aan kula wadaago muuqaalo yaab badan oo qaarkood aan jarjari doono maadaama aysan ogoleen bolisiga iyo siyaasadda YouTube-ka dhalinyaro inta soo qabtay si geesinimo leh waliba qaar ka mid ah kooxda ururka al-shabaab oo hubaysan jirdil u geysanaya oo ciqaabaya qaarkoodna waxay leeyihiin waxaan ku dhaansanaynaa biyaha maadaama uusan ahayn shakhsi u qalma nolol oo ku soo duulay shacab islaam ah oo aan waxba ka galabsan haddaba aan kula wadaago muuqaaladaasi iyo kuwo kale oo aad u fara badan maxaabiis ururka al-shabaab ah oo la soo qabtay iyo qaabka loola tacaalayo marka ma soo weydii dawladda soo weerartay ani geeska soo orday marka soo orday markii ugu dambeysay marka soo socday soo baxay laba kala afar soo dhuman ka tirsan waa maanta mare ani kana ka tirsan inay baydoog wax kasta dadkii dulka aadeen waa hal kartaa aadeen aan dadkii oo ku geeray aadeen Nairobi meesha aan joogo meesha gaarsan kale aadeen bas meesha aan soo saamaka الدولتين ولا ليتين والله أبو عن الله نجي على شباب من نجي والله ويسوق الدنيا واقعي والله قوي تاسكت أفا ديك هذا أريد والله بالله إيمانك الله يقدرنا تناجي والله الدولتين واحد يقول حال هذا برا اسمك قدرة القشاش ما تكسر جيت سني سود الشكالة دي عميسة نيوبوليسكي على القشاشة كافية يعني لمبا ماشي سيجي عليها لمبا الناس اللي ممكن يا نكسر اللمبا إلا إذا نكسر هي عقيدة مسنية نكسر عيد سوء مسنية هذه عيد هذا مسنته أني مكر هي مسنية هي هذا مسنية هي هذا مسنته هذا ما نيوبوليس هذا مسنته أيوه بسم الله الرحمن الرحيم
nimanka argixisada dagaalka dhigeen hadda magaalada Afcada ayaan ku sugan aanu way baxaysaa waa la aadayaa dadku u baxaya waxa way meesha waa lagu go'ay oo meyd fara badan baa jiro meydkii tab loo kala xawaalaa la leeyahay marka waa la birmanaya dadkii waxa weeyaan shacabkii eeriyadii iyo wadankii joogay waxa weeyaan yaa loo birmaday waxa weeyaan haddana nimankii ayaga gacan baa lagu hayaa badi waa loo qabtay qaybna waa la laayay qaybna wali waa la hayaa eegana way dhacaysaa Afcada hadda lagu soo dhow yahay xabad u soo dhacaysaa sida ay wararku noo soo tabinayaan dadkii iyo waxa weeyaan magaaladii wixii oo dhan waa la baxaya dadkii wax garadii wax toona wax xaray ma jiro waa la socdaa wakaasoo hadda saasa maartay loo yaacaya dadka dhamaantii waxa weeyaan waan arkaynaa markii xagga la tago wixii dheeraada markaa baa isla socodsiin doonaa wakaasoo dadkii waa yaacaya ilaahay ha naga qabto dadkaas waxa weeyaan zaalimiinta magaca waa adiga Abdullahi qalama tahay يا ددبلي ما رحمين به ها مهوية يا هوية تاي هاي هذه ورا مقعة إبراهيم أيوه يا إبراهيم أبي جودوين أبي قلما تاي يا قال جعل هاي وان قلت جبلة حاجة كسر علي يا جلب هذول حاجة كسر على راه حاجة كسر علي قريلي هيا قريلي قاح إذن ليس إله إذنك قريا وحقولي محادث هذين السن يا والله الصاقل ده مالي وين بالو خلدي هيك مسحنتها هيك وهذا مسحنتها مسحنتها هذا مسحنيها هي قلمات هي يا كتر الشابة هي قلشتها قلمات قبيل لسان هي جلكت كتر يا قول سكتة هي ده حكيك حاجات حاجات ريت في الدقيقة حاجات دقيقة أنا مجالات مرت وران كبر باري لكن أتباديان مجالات كبر بارتي كل على كذا بيدور ما بغيا نورشة الوقت نورشة كشاكة من يوب كبحسن كر إن يوب عد بك ما بحسن كرته ساعة صيدتك وصلوشان ورياه من يوب كبحسن كرته رانتها القشاش الغاية كشاكة ما عرفته ورنيو ساعة صيدتك وصلوشان نورشة لقوق عن آير